diyaaradii shalay burburtay oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Ethiopian Airlines oo uu nambarka duulimaadkeedu ahaa 302 oo gudaha dalkaasi ku dhacday ayaa waxaa la helay sanduuqii kaydinayay xogta diyaaradda. Shirkadda diyaaradaha samaysay ee Boeing ayaa waxaa laga sugayaa inay ka jawaabto sababta keentay inay diyaaraddu burburto muddo 6 daqiiqo oo kaliya xilli ay hawada ku jirtay. 6 bilood ee la soo dhaafay waa shilkii diyaaradeed ee labaad ee ku yimaada shirkadaasi diyaaradaha ee Boeing ee nooceedu yahay 737 Max 8. bishii Oktoobar ee kal hore diyaarad noocana oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Lion Air oo burburtay waxaa ku dhintay 189 qof. Wakaaladda duulimaadyada ee dalka Shiinaha ayaa saraakiisha caalamka u sheegay inaanay diyaaradahaasi duulimaad ku iman karin dalkeeda laga bilaabo maanta. 6 bilood ee la soo dhaafay waa shilkii diyaaradeed ee labaad ee ku yimaada diyaaradda Boeing ee nooceedu yahay 737 Max 8. Khubarada duulimaadyada ee ku howlan baaritaanka shilkan waxa sababay waxa ay sheegeen inay waqti qaadanayso in la ogaado sababta shilku uu ka dhashay. Dalka Itoobiya ayaa maanta looga baroor diiqayaa dadkii ku dhintay shilkii diyaaradda ee dhacay maalintii shalay, iyada oo calanka dalkaasi hoos loo dhigay dalka gudihiisa iyo safaaradaha uu dibadda ku leeyahayba. Baroordiiqa halka maalin soconaya ayaa waxaa go'aamiyay golaha wakiilada shacabka ee dalkaasi Itoobiya. Shilkaasi oo aan la sheegin waxa sababay haddana weli waxaa socda baaritaan lagu ogaanayo sababtii shilkaasi ka dambeysay. Dadkii diyaaraddaasi saarnaa oo dhammaantood geeriyooday waxa ay u kala dhasheen 33 dal. Diyaaradda rakaabka ee burburtay oo nooceedu uu ahaa Boeing 737 Max 8 waxa ay burburtay xilli ay u kala gooshaysay magaalooyinka Addis Ababa iyo Nairobi. Shirkadda ayaa daabacday liis ay ku qoran yihiin dadkii shilka ku dhintay iyo dalalkii ay ka soo jeedeen, waxaana liiska ku jira hal qof oo sitay baasaboorka Soomaaliga. waxaana ay u muuqataa in shirkaddu ay tixgelisay baasaboorrada ay dadkaasi siteen oo keliya, balse waxaa ku jiray dad asal ahaan Soomaaliya oo baasaboorrada qaarkood sitay. Liiska ay daabacday shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa waxa uu ahaa sidan: 32 qof waxa ay siteen baasaboorka waddanka Kenya, 18 qof waxay siteen baasaboorka Canada, baasaboorka Itoobiya waxaa sitay 9 qof, baasaboorka Shiinaha waxaa sitay 8 qof, Talyaaniga waxaa sitay 8 qof, Ameerikana 8 qof, Faransiiska iyo Ingiriiska midkiiba waxaa sitay 7 qof. waddanka Masar waxaa sitay baasaboorkiisa 6 qof, dalka Jarmalka 5 qof ayaa sitay baasaboorkiisa, 1 qof waxa uu sitay baasaboorka qaramada midoobay, dalka Hindiya 4 qof ayaa sitay baasaboorkiisa, waddanka Slovakia 4 qof, Australia 3 qof, Ruushka 3 qof, Sweden 3 qof, Spain 2 qof, 2 qof waxay siteen baasaboorka waddanka Poland, dalka Indonesia 1 qof, Ireland 1 qof, Rwanda 1 qof, Sacuudiga 1 qof, Soomaaliga 1 qof. inkastoo ay jireen dad kale oo Soomaali ah oo ku dhintay shilkaasi diyaaradda oo iyagu sitay baasaboorro kale. waddanka Serbia 1 qof, Nepal 1 qof, Nigeria 1 qof, Morocco 2 qof, waddanka Israa'iil 2 qof. waddanka Belgiumka waxaa sitay baasaboorkiisa 1 qof, Uganda 1 qof ayaa sitay, 1 qof waxa uu sitay baasaboorka waddanka Yemen, baasaboorka waddanka Suudaan 1 qof ayaa sitay, halka 1 qof uu sitay baasaboorka waddanka Togo. Mozambique 1 qof ayaa ka sitay, 1 qof waxa uu sitay baasaboorka waddanka Norway. Dhammaan dadkaasi waxa ay ahaayeen dadkii shalay ku dhintay diyaaraddii shalay ku burburtay dalka Itoobiya. Itoobiya ayaa maanta ku dhawaaqday maalin looga baroor diiqayo dadkii ku dhintay shilkii diyaaradda ee shalay dhacay. Saciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star.